السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وسلامتين داود المال والبا joogtaan iyo si walba muuqaalkan u daawanaysaan kusoo dhawaada cashirkeeni toddobaad ee ku saabsan koorskeena magaca baxay computers accounting oo ku bareerayna softwarekeena B3 insha Allah maanta cashirkeena waxa kaleena laba ujeedo balse intaan u gudbin cashirkeena kusoo dhawaada muuqaalkeena cashirkeena waxa kaleena laba ujeedo ujeedada koowaad waxay tahay inaan sameyn karno ama aan qoran karno dalabka aan rabno inaan soo iibsano inta wax soo iibsano waxaan rabaa inaan qorato waxa soo iibsanayso sidaas daraadeed B3 wuxuu ka caawinayaa inaad dalbato ka hor intaadan soo iibsan ujeedkeena labaad waxay tahay inaan wax ku soo iibsano deyn haddii wax deyn ku soo iibsano laba akoon ay saameyn doontaa akoon kamid ah akoonada asset-ka oo loo yaqaan inventory asset akoonka labaad ee saameynaysa waxay tahay akoon kamid ah deynta maadaama wax ku soo badanaysa deyn labada akoonka way kordhi doonaan asset-ka way badan doonaa liability ama deynta lagu leeyahay way badan doontaa akoonka asset-ka badan waxaa loo yaqaan inventory asset deynta lagu leeyahay ama akoon payable-kana way badan doonaan sidaa darteed asset-ka way badan doonaa liability way badan doontaa marka hadda aan tuso sida loo sameeyo dalabka waxaad tegaynaa halkay qoran tahay tasks waxaan kasii doonaynaa purchase order markaan kasii doono shaashada helista ayaa soo bixi doonta qaybtan kuwaad waxaa gelinaysaa vendorka wax ka dalbanayso okay tusaale ahaan anaga waxaan ka dalbanaynaa Sweden markaa vendorka aad geliso halkaasi waxaa lagaaga baahan yahay purchase order number dalabka aad dalbanaysid numberkiisa inaad geliso lagaaga baahan yahay anaga waxaa leenahay tusaale ahaan waa dalabkeenii koowaad inta xabo aad dalbanaynaa meesha gelinaynaa tusaale ahaan anaga waxaa gelinaynaa 200 xabo soo gadanaynaa itemka shayga aad ka dalbanayna magaciisa ku qorayna meesha haddii kale tood falaarta lista afuraysa waxaa kuu soo bixi doona inventory-da dhanaa kuu soo bixi doona marka anaga hal inventory bisa noo samaysan waana Samsung A50 asiga ayaa ku dhufanaynaa okay waa u jeedaa wixii dhan inuu asad soo baxsaday unit price-kiisu yahay $180 haddii aan dalbano 200 xabo lacagtoodu waxay noqonaysaa $36,000 asiga isku dhufto ku xadhan dalabka markaa saas aad u dhamayso waxaad leedahay halkay qoran tahay save markaa dhacdo haddeertaan dalabkii ayaan sameynay sidaa darteed waxna ma nolol keen balance sheet-ka wax ma iska bedeli doono okay waxaan rajeynayaa inaad fahamtay sida loo sameeyo dalabka markii aan dalabka sameynay kambaniga wax ka soo iibsan jirnay awacayna waxaa leenahay waxaa u baahan alaab noocaas ah marka waxaa rabnaa inaad deyn lagu siisiin kambanigii uuna aqbalay inuu deyn lagu siiyo dalabkeena ayaa u gudbinaynaa dalabka markii aan u gudbino kambaniga deynta aan ka dalbanay maadaama uuna aqbalay alaabtii ayuu noo soo raray alaabtii gaari ayaa noo soo saaray marka alaabtu waxay imaatay makhaasiinka kambaniga imaatay marka alaabtu markay imaatay haddeertaan ay transaction dhacay markii aad dalabkaa samaysay wax isma saameyn waayo waa dalbadoo keliya alaabna kuma iman lacagna aadan bixin sidaas darteed wax saameynaya malaha laakiin markii kambaniga aa wax ka gadato alaabtu ku keeno markaasi ayaa dhacaysaa transactionka alaabtu markay noo imaato waxaa rabnaa inaan dhahno dalabkii aan dalbanay wuu noo imaaday markuu dalabku ku imaaday aad geliso B3-ga markaasi ay dhici doontaa transactionada markaasi ay balance sheet-kaaga saameyn doonaa hal mar aan tusa sida loo diiwaangeliyo markii alaabta ay kuu timaado dalabkii aad dalbanaa noola keenay maxaa sameynaynaa waxaan tegaynaa halka ay ku qoran tahay task waxaan dooranaynaa purchase/receive inventory markaa taabano halkan aan kuu soo baxi doonaa waxaa gelinaysaa meeshaan vendorkii aad wax ka dalbatay hal vendor bisa aanan ka dalbanin okay vendorkii aad dalbanay okay dalabka aad ka dalbatay dalabkee waay okay halkay qoran tahay apply to purchase order number ka doonaynaa waxaa leenahay dalabkii koowaad ee aad dalbanay ayaa haddeertaan noo yimid haddii aan taabto asiga dalabka dhan wuu yaqaanaa haddii aad taabto fiiri wuxuu leeyahay 200 xabo aad gadato oo mobile Samsung A50 ah wixii dad soo gelisay waa ma fahamtay asiga la yaqaan waxa okay halkan waxaa gelinaa invoice number alaabta aan keenay qaansheegta la socoto numberkeeda meesha gelinaynaa sooraan aan askan 33547 invoice numberka markaa geliso alaabta aad dalbatay kulli ku imaaday misaafa ku imaaday haddii ay kulli ku imaaday received meesha qoranta hoosteeda waxa qoraysaa 200 qoraysaa kulli haday ku timid weeyaan laakiin haddii aysan ku imaanin kulli ay ku imaanin oo laakiin half ay ku imaanin waxaan qoraysaa inta hashaa ku qoraysaa meesha sooraan waxa dheena 100 xabaan oo timid dheena 100 xabaan oo timid kaanaano waxaa leenahay save transactionada hadii dhacaya marka haddeertaan diinta lagu yeelna mobiladaadana ee badan doonaan okay save alena waan iska kansalaya waxaan tegayaa financial statement-kiga anigoo si doono balance sheet-kan sida wax u dhacayna saa u aagno waxa u jeedaa inventory asset inay ku darsatay 18,000 deentana lagu leeyahayna ay isla 50,000 laakiin haddeertaan ayna qabtay 68,000
waxaa aad iyo aad u qurux badan inaan tuso balance sheet-keena ka hor inta aanan diiwaan gelin alaabtan balse dhib malahan haddeertaan ayaan kusoo celinayaa hal mar maadaama aan rabo inaad ogaatiin sida balance sheet-ka wax ay u sameynayaan waxaa rabnaa akoonkeena inventory asset-ka inay kordho haddeertaan waxaan ku jiro cagaaris $18,000 waxaa rabnaa dalabka dambe aan samayn doono qiimihiis inay inta ku darsamaan sidoo kaleeto deynta nagu leeyahay waxaan hadda nagu leeyahay $68,000 marka waxaan rabnaa inay $68,000 ay ku darsanto lacagta aad soo diisanayno haddeertaan waxaa haysanaa inventory asset oo qiimihiisa gaaraya $18,000 okay laakiin hadda diinna waxaa nagu leeyahay $68,000 hal mar dalabaa sameynaya dalabkiina waa helaya waxaan tegaya halkii qorantaa taskiis waxaan kasii dooranaynaa purchase order markaan kasoo daawano halkaani dalabka labaad ay qoran tahay waxaan ka dhigaynaa dalabka saddexaad fenderkaa kasoo gadanayna waxaa loo yaqaanaa fenderkaa kasoo gadataa gelinaysaa sudan okay tusaalahaan waxaa dalbanaynaa tookadan 20 xaba tusaalahaan iska dalbanaynaa 20 xaba markaa dalbano 20 xaba leenahay itemkan waxaan ka dooranaynaa isla mobilka hadda dalbanaynaa marka asiga yaqaano 3600 waxaa rabnaa inventory-geena inaan ku darsanto 3600 hadda isla meeqaysanay 18,000 $3,600 inaan ku darsantaa rabnaa sidoo kale diinta nagu leeyahay oo $68,000 waxaa rabnaa inaan ku darsanto $3,600 okay maxaa yeelay anaga waxaa wax kusoo gadan doonaa diina wax kusoo gadan doonaa lacag bixinayno sidaas darteed assetkaaga waa u badanayaa liability-gaana wuu badanayaa akoonka assetka ee badanaya maxaa loo yaqaanaa marka waa inventory asset okay waxaa leenahay siif aa leenahay siif markaa dhaan haddeertaan waxaa sameynay dalabkiyaa sameynay okay dalab markaa sameynay waxaa la rabaa inaan dhahno dalabkiyaa helnay waxaa leenahay task meesha qoran tahay waxaa kasii dooranaynaa purchase/receive inventory kadib waxaa leenahay fenderka meeshaan ka dooranayna anaga hal fender aan abuuran fendero badan waa samaysan kartaa okay purchase numberna waxaa leenahay dalabkii saddexaad hadda noo yimid waa 20 xabo mobile Samsung A50 ah okay meeqa xabo helnay marka waxaa leenahay waxaa helnay 20 xabo waa helnay 20 xabo helnay markaa aan invoice-ka meeshaan gelinaynaa numberka invoice-ka markaa gelino waxaa leenahay save waxaa rabnaa transaction-ka sida u dhacaynaa faantiin haddeertaa balance sheet-keena haddaa booqan waxaa rabnaa inay dhahno inventory asset-keena oo ay 18,000 waxaa rabnaa inay ku darsanto $3,600 sidoo kaleeto diinta aanna lagu leeyahan waxaa rabnaa inay ku darsanto $3,600 okay waxaa leenahay save markaa dhahno waa iska kansalaynaa waxaa dhiganaa report and forms kadib waxaa kasii dooranaa financial statements balance sheet-ka double click ku siinaynaa waxaa leenahay okay waa ujeedaa inventory asset-keena adaad 18,000 ahay hadda waxaa ku darsantay $3,600 $3,600 lagu daro waxay noqon doontaa $21,000 iyo weliba $600 sidoo kaleeto diinta uma idan diinta nagu leeyahay $21,600 adaad meeqaan nagu waay $68,000 waxaan ku dartaa haddeertaan $3,600 kaleeto aad soo deysane waxaan rajeynayaa taasina inaad fahanteen insha allah waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysatay casharkan isla markaasina aad isku dayi doonto inaad mar kaleeto samayso وعجباس تحسن الأوذن أضل حقيبي كرا هنقول من تالي التمن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.